بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waa دكتور عبد الشكور محمود أحمد waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay daaweynta iyo qalliimada lafaha kana howlgal isbitaalka Royal ee magaalada Muqdisho waxaan rabnay maanta inaan iclaamino shirkii saddexaad oo aan labadii sano u dambeysay si joogto ah u qabanaynay dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed shir cilmiyeedkaas ayaa sanadkan wuxuu daaran yahay caqabadaha iyo sida loo gudbi karo soo wajaha dhakhaatiirta ka howlgala dalka Soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gali doona dhammaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya iyo dibadiisa shirka ayaa waxaa looga doodi doonaa maxaa la dhahaa warqadaha ama cilmi baarisyo laga sameeyay dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayadoo dhakhaatiirta ay isku weydaarsan doonaan shaqooyinka iyo waxqabadka ay qabtaan iyo caqabadaha ka jira iyo sidii looga gudbi lahaa shirkan ayaa sanadkan waxaa loo asteeyay insha Allah tacaala inuu dhaco 10ka bisha 9aad ama 10ka September 2026 nala soco dhawaan insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.